waxaan shirkan jaraa'id u la xiriiraa waad ka warqabtiin maanta kulan muhiim ah oo taariikhda Soomaaliya siyaasadeeda oo ahaa kala goys iyo meel maaragtay xasaasiyana wadanka xaalad xasaasiya soo ku jirana ku soo aaday in uu ay jireen saddexdii madaxweyne ee isaga dambeysay xilalka laga soo bilaabo 2009 ilaa iyo 2019 oo hadda ah 10 sano madaxweynayaashii dalkan soo maamulay in mar kale ay u fariisteen xaaladuna ay ka fursan weyday in talada hadda ay u baahan tahay in xaaladda dalka laga wada tashado aragti midaysan laga wada yeesho arrimo dhowr ah oo ay noo sheegi doonaan madaxweynayaashu kulanku maanta wuxuu ahaa bilow muddo la kala maqnaa bilow ayuu ahaa wax kastana kuma dhammaan karin laakiin qodobadii la isku soo qaaday oo badankoodii ama intoodii badnayd waxba la isla gaaray waxaana noo sheegi doona madaxweynayaashii shirka ka qayb galay oo fast hand information ayaa ka qayb galay waana ballaminay meediyaha si aan transparency iyo daafurnaan ula wadaagno ummadda Soomaaliyeed wax badan ku xireysay shirkaasi wixii maantay ay madaxweynayaasha saddexda ay ku wada hadleen marka waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummadan Soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo talana muxuu ahaa lagu toosiyo talo lagu wada lahaado madaxweynuhu waa soo dhaweeyay gurigiisu lagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilow ay ahayday shir horu dhaca oo bilow ah oo mustaqbalka soo socda shirar badan inay ku soo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo kuwoodii ugu muhiimsanay oo maxaan ku yiraahday ummadda Soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso kana mid ah muxuu ahay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaan ku yiraahday si fiican ay dalkan ugu hagaago waxyaabaha dadka Soomaaliyeed baryahan dabo dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka madaxweynaha soo qaadnay waqti badan aan gelinay si fiican aan uga hadalnay waxaanan isla soo dhaweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo waqtigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin doorashaduna ay ka wada qayb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho la soo doortay dhammaantood waqtigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaa doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badani ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan ku soo ballanay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo sidee u soconay iyo sidee tahay sidee waa arrimo muxuu ahay dib aad looga lafaguri doono oo looga hadli doono waxaa kaloo madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow iyo mugdi ee jiro oo dhan in wada hadal lagu dhammeeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan arrimaha ammaanka aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen waydana waqti badan aan gelinay waxaan isla afgaranay isla garanay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin
oo aan haddii askari qaldamo iyo qof qaldanta ay jirtaahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aada iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garanay. waxaa kaloo oon madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir. gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka beddesho, la hagaajiyo, la qurxiyo, maxaan ku idhahdaa aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ay ku fuli karaan dadka gobolkan degan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan, xaqooda matalaadda ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalli ka yaho ogolyahu noo sheegay, annaguna waa soo qaadnay. wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo waqtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan ayadana. guud ahaan waxaan isla garannay, isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro, niman cadow oo shabaab la yidhaha ummaddana ay dhib ku hayaan, in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab. dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac iyadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab. cadow waaye, cid gaaruu cadow u yahay ma jirto shabaab, dadka soomaaliyeed o dhan uu cadow u yahay. wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo howlihiisa fududaynaayo, magac u yeelaayo, kor u qaadaayo, ammaanaayo, dacaayad iyo barobaganda u samaynaayo waa cadow iyaguna. marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahayne waa isla soo qaadnay dadka soomaaliyeed oo dhan arrintaas inay istaagaan. guud ahaan jawiga ay wadahadalkaas ku dhacay waa ficnaay. waxaan isleeyahayne mustaqbalka wadahadallada dambe oo soo socdane waa ka sii ficnaan doonaan. inta maanta ay ahayd bilaabuu ahaa. wixii farsamo ana dad farsamo ka shaqeeyo oo u xil saarana loo magacaabi doonaa. wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahayna si siyaasadaysan oo aan dalkan dantiisa ay ku jirto oo aan qof gaara iyo koox gaara loogu danaynaynin ayaa iyadana looga hadlayaa, maantana looga soo hadlay. guud ahaan waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo. jawigu waa hagaagsanaa, dhib ma jirin, rajaan qabnaa mustaqbalkana insha allahu tacaala wadahadaladuna halkaasay kasii socon doonaan. waa mahadsantihiin aad iyo aad. waxaan idiin sheegaynaayo madaxweynayaashu ay ku dareen warbixintoodii oo afkoodu aysan ayagu ka sheegin in wixii dhacay labada jeer ee lasoo dhaafay aeroboorka lagu celiyey iyo arrintii u dambeysay oo beledweynuhu halkan lafteeda shirka lagu qabtay, shirka jaraa'id, in arrintaas madaxweynuhu garowshiyo uu ka bixiyey kana garaabid ay ku qanceen ayna u soo qaadeen intii kale ee xisbiyadan ka tirsanayd iyo soomaalida guud ahaan kuwii loo gurmanayey iyo kuwii kismaayo loogu socday iyo kuwii maaragtay loo gurmanayo gurmadkoodii saacadaha la hakiyey khatartana loo geliyey. arrintaas garaabid tii u dambaysa ahayd bay soo qaadeen, wayna ku aqbaleen, annaguna sidaasaan ku aqbalnay. arrintaana warbixin bay ahayd. runtii qoyskeeda iyo ehelkeeda iyo ummadda soomaaliyeed waxaan uga tacsiyanaynaa geerida gabadhaas ku timid. waxaanan dalbanaynaa madasha xisbiyada qaran waxay dalbanaysaa meeshaasoo la ogyahay meelaha ugu nabadda badan soomaaliya inay tahay, aysan sahlanayn in si fudud qof loogu toogto. aan isleenahay markii koowaad weeye oo aan weerar toosa ama mid hoobiye ahayn qof meeshaas gudaheeda dhibaato u gaarto ama uu ku dhinto naftiisii halkaasi ay ku baxdo. waxay madashu dalbanaysaa in baaritaan saxa oo aan ahayn guddi baa loo saaray oo aan ahayn maaragtay kii gobolka banaadir ee hadda u dambeeyey oo kale ayaantii dhaweyto gabar indhala ah baa isku qarxisay guddoomiyii ahayn, in arrintaas baaritaan rasmiya la geliyo. arrintaasi runtii ummadda soomaaliyeed walwal xooggan ayay gelisay in gabar wax soo baratay dhallinyaro ahayd
dibadda ku dhalatay dalka u timid inay waxqabadkeedii iyada iyo qoyskeedaba lagu yaqaano waxqabad in sidaas fudud loogu dilo meel oo ilaa iyo haddana aanan ogeyn war ka soo baxay dowladda runtii arrintaasi walwal xoogan bayna gelisay waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka oo aan ka tirsannahay annagu inay arrintaasi baaritaan rasmiya la geliyo oo ummadda soomaaliyeedna ay ku qanci karto sababta ay u dhimatana dee ummadda loo soo bandhigo meeshaasoo la ogyahay inay tahay dee meeshii u dambeysay marka meel nabadgelyo lagu helayo ma jirto weeye haddii halkaas dadka lagu ugaarsanayo lagu dilayo marka mar kale eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeedba tacsi ayaan u soo gudbinaynaa gabadhaas walaasheenay ee dhimatay ayadana waxaan leenahay allah u naxariisto waa mahadsantiin